maxaad ka taqaanaa qisada cajiibka ah ee heesta Lugooyo ee ku luuqayso fanaanada weyn ee Bintu Cumar Gacal? Waqtigu waa hilaadii 1982. Bintu Cumar Gacal ayaa waxaa lagu martiqaaday inay ka heesto aroos ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. madasha waxaa joogay fanaaniin Bintu Cumar Gacal xagga fanka iyo da'daba kaga weynaa oo kaga soo horreeyay in badan ixtiraam badan ay u hayso. Bintu waxa ay la ballansanayd nin uu xiriir jacayl kala dhaxeeyay waqtigu markuu uu ku beegan yahay 2 fiidnimo ama abbaara 8 fiidnimo. kama hormari karto fanaaniinta oo way xushmaynaysaa, ballantiina si weyn ayay uga walwalaysaa oo qofkii xiriirka jacayl uu kala dhaxeeyay inay ballanta uga baxdo ma jecla. Abwaan Sangub ayaa arkay markaas Bintu oo kaligeed meel fadhida. waxa uu ku yiri maxaa ku helay? Bintu waxay u sheegtay inay qof la ballansan tahay 8 hobalada ka waaweyn ay ka hormari karina arrinkaas darteed ay yara walwalsan tahay. Abwaan Sangub eebaha u naxariistay waxa uu u ballan qaaday inuu iyada ugu horreysiin doono, dabadeedna ay hawsheeda qabsato. waxa uu u sameeyay midho cusub isaga oo laxanka heesta si degdeg ah uga dhigay heesta Balwo ama Leylay. waa ay qaaday heestii waa ayna baxday Bintu Cumar Gacal oo jacaylkii ay 2 fiidnimo la ballansanayd ayay aaday. Jabba waa kan dambeeyay Bintu Cumar waxa ay qabatay gurigii ay ku ballansanaayeen ninkii ay wada hadli jireen ama xiriirka jacayl uu kala dhaxeeyay oo 2 fiidnimo ay ballansanaayeen. gurigii markii ay gashay mise waxa ay aragtay ninkii oo gabadh kale tala joogo. dhac alla qaracan weyna waa ama kaag waa la iskhilaafay oo meeshii ayaa la isku dagaalay iyadoo cir iyo dhul meel ay marayso aan is ogeyn ayay habeenkii iskaga hoyatay. hurdase waa ay ladi weyday oo hurdo dhan kama aysan imaanin. aroornimadii ayaa sidii ay caadada ahayd u jihaysatay dhinaca iyo golihii ay ku kulmi jireen abwaanada iyo fanaaniintii Soomaaliyeed. waa golihii tiyaatarka qaranka ama National Theatre-ka. Barre Maxamed Fiidow ayaa dareemay in maanta dhibi ku soo kordhay Bintu Cumar Gacal. Bintu maanta maxaa ku helay oo aad la warwarsan tahay ayuu su'aal ahaan u weydiiyay abwaan Barre Maxamed Fiidow Bintu Cumar Gacal oo meel cidla kaligeed fadhida. waxba ay helay Barrow ayaa ayaduna si halhaleela u tiri. nin aan wada soconay ayaa xalay ila ballamay, waxaanse gurigii ugu tagay isaga oo gabadh kale la joogo. marka maanta xaalkaygu waa bariga dhexe ayay ugu jawaabtay abwaanka. arrintan oo kaleeto abwaanadu si fiican ayay u soo dhaweeyaan, waayo waa xaalad ku habboon in wax la ilaahdo ama la curiyo oo maankooda gilgili karto waxna ka keeni karto. Barre Maxamed Fiidow waxa uu curiyay heesta Lugooyo ama Axde, qofba sidii uu yaqaan. waa halka ay ka curatay heesta cajiibka ay ku luuqayso fanaanada Bintu Cumar Gacal ee Lugooyo.